Somaliland in ka badan 80 sanadood waxa lafdhabar dhaqaale u ahaa xoolaha nool kuwaas oo loo dhoofin jiray wadamada Carabta iyaga oo nool muddadaasi dheer kadib magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa laga hirgeliyay warshad farsamaysa hilibka xoolaha taasi oo dhoofinaysa hilibkii warshadani waxay daabaxad ku samaysaa ariga noocyadiisa kala duwan sida riyaha iyo idaha kaasi oo lagu qalo hanaan casri ah oo loogu talagalay warshadani ay ku qalabaysan tahay isla markaasina waafaqsan shariicada islaamka halkan aan ku suganahay daawadayaal waa warshada hilibka ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay ii sheegeen mas'uuliyiinta warshadani in maalintii ay qalaan ari ku dhow 500 oo neef waxa sidoo kale halkan ka hawlgala shaqaale tiro badan oo qaybaha kala duwan ee warshadaasi ka hawlgala qaarkood dhinaca caafimaadka ay u qaabilsan yihiin hadda halkan waxa yaala neefyo kala duwan oo ay warshadu farsamaysay waxay ku bushqadaysan yihiin warqad ay ku qoran tahay in Soomaaliland ay xoolahani ka soo baxeen waxaana sidoo kale loo dhoofinayaa wadamada kala duwan ee dunida xoolaha ay warshadani farsamayso lagu isticmaalo suuqyada kala duwan ee Soomaaliland maadaama gudaha Soomaaliland laga helayo hilibku isagoo fresh ah laakiin si dunida kale ay warshadani u dhoofinaysaa Somaliland hilib way helaan laakiin anaka waxaan ku talagalnay inaan international community ka qayb galno so hilibka anaka qadno waa dhamaantooda waan dhoofinaa Emiraadka GGC-ga hadda Omanna waa noo gashay si wacan baan suuqa ugu jirnaa iyo meelo kale waa ku howl jirnaa hadda waxaan sugaynaa jawaab celintii haday tahay Malaysia u dhoofinayna iyo haday tahay Emiraadka waa ku jirnaa jawaab daawadayaal halkan aan imika ku jira waa mid kamid ah koontiinarada lagu qaboojiyo xoolaha ama ariga la soo qalo saad arkaysaan ariga ayaa iga dambeeya laakiinse waxay ii sheegeen